Ku soo dhawaada asxaabta qaaliga ah barnaamijkeena ciyaaraha aynu ku eegi doono ciyaarihii xalay dhex maray kooxda Real Madrid iyo Chelsea ee semifinalka Champions League. Sidoo kale waxaynu iyaguna ka hadli doonaa ciyaaraha caawa dhici doona ee tartanka Europa League ee dhex mari doona kooxaha Manchester United iyo Roma iyo Arsenal iyo Villarreal. Ciyaartii xiisaha iyo xamaasadda lahayd ee u dhexeysay kooxda Real Madrid iyo Chelsea ay u soo baxday finalka Champions League kadib markii ay xalay ku tumatay kooxda Real Madrid. Ciyaarta daqiiqadii 28aad ayaa ciyaaryahanka Timo Werner caawin ka helay saaxiibkiisa Kai Havertz oo shabakada ku hubsaday, taasoo ka dhigtay ciyaartii gool iyo eber. Qaybtii koowaad ee ciyaarta sidaas lagu kala naystay 1-0. Qaybtii labaad ee ciyaarta markii la isku soo noqday, labada kooxood bay soo dhigeen ciyaar aad u cajiib badneyd, taasoo labada kooxood bay sameeyeen fursado aad u fiican. Daqiiqadii 85aad ayaa Chelsea goolkii labaad ee ciyaarta la timi kadib markii Mason Mount uu shabakada ku hubsaday, kaasoo saaxiibkiisa Christian Pulisic oo caawin fiican aad ka helay. Ugu dambeyn, ciyaartu waxay ku dhamaatay 2-0 Chelsea kaga badisay kooxda Real Madrid, taasoo kaga Stamford Bridge martay ku ahayd. Halkaas kooxda Chelsea ay ugu baxday finalka Champions League. Finalkan hore ciyaartan uu sii fadhiday booska Champions League hore ugu sii baxday habeen hore kadib markii kooxda Man City ay iyaduna ku tumatay kooxda PSG. Finalkan ayaa noqon doona finalkii labaad ee kooxaha Ingiriis isku yimaadeen tartanka Champions League, kaasoo hore isugu yimaadeen 2008 kooxaha Manchester iyo Chelsea. Haddii aynu eegno dhinaca Europa League, ciyaarta dhex mari doonta Manchester United iyo Roma, ciyaartan ayaa lagu soo kala baxay 6-2. ciyaartii ka dhacday geega Old Trafford ee guusha ku raacday kooxda Manchester United. Kooxda Roma ayaa martigeli doonta geegadeeda Olympiacos ee kooxda Manchester. Kooxda Roma ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii ay uga soo kabin lahayd guuldaradii xanuunka badneyd ee kasoo gaadhay ciyaarta Manchester United. Caawa kooxda Roma ayaa baadigoobaysa sidii 4-0 ama 5-1 ay ka badin lahayd kooxda Manchester si ay u soo noqoto si ay u gaadho tartanka Europa League finalkiisa. Kooxda Man United oo natiijo fiican haysata ayaa caawa rabta inay u guuleysato tartanka Europa League finalkiisa, kaasoo ugu dambeysay Europa League ku guuleysatay sanadkii 2017 markii uu watay Mourinho. Tababare Solskjaer intii watay Manchester United ayaa wax final la gaadhin. Si caawa dadaal dheer si ay u muujiyaan ay doonayaan inay finalka gaadhaan caawa si ay ugu guuleystaan tartanka Europa League. Ciyaarta aadka u xiisaha iyo xamaasadda badan ee Arsenal iyo Villarreal, taasoo Arsenal ku martigeli doonta geegadeeda Emirates Stadium. Ciyaartan ayaa lugtii hore lagu soo kala baxay 2-0, kaasoo Villarreal kaga badisay kooxda Arsenal. Arsenal ayaa baadigoobaysa sidii ay gool celin u sameyn lahayd ee uga badin lahayd kooxda Villarreal. Natiijada Arsenal laga rabo waa gool eber ama inay kaga badiso 3-1, kaasoo ka dhigi doonta Arsenal inay finalka Europa League u gudubto. Sema noqon doontaa in Villarreal caawana ku durduriso kooxda Arsenal. Warbaahinta caalamka ayaa aad u hadalhaysa sida labada kooxood Arsenal iyo Manchester United ma noqon doonaan labada kooxood ee kooxaha England ee labayn doona tartanada Europa isugu yimaado.